السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحابي ملكستو كنوشيهين ما شاء الله تبارك الله I hope ina fiicantiin oo wanaagsantiin oo ladantihiin sida aniga oo kale aan idin soo horfariisanayo waqtigan xaadirka ma sha Allah tabaarakallah waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aan la yaabo oo iga yaabisay dad isdagaalaya gabdho isdagaalaya oo isrifahayo waqti la isrifo oo la isdagaalo lama joogo subxaanallah xasbunallah wa nicmal wakiil maxaa dhacay gabadhani waxay ahayd gabar caan oo baraha bulshada xitaa caanka ah waxay ahayd inay isaga cararto aanay dagaalkaba u istaagin maasha allah ima garanayo in lagu soo booda iyadoo marka ay isdifaac ka tahay macnaha iska caabinayso qofkii kusoo boodaysan u cararaynin maasha allah waa arrin la yaab leh I think gabadhan inay ku nooshahay Sweden waxa isdagaalayna ay ku nool yihiin Yurubta waa xaalad meel kasta oo aan joogno haddaan Soomaalinahay waxaa arkaysaa inaan isdagaalayna isdirirayna isriifayna iscunayna meeshaan ma aragtay aan iska waxayn lahayn oo iska caawin lahayn maasha Allah tabaarakallah waxaan ugu dhacay maxaan ugu dhacay helay yaa yaqaan اتقانا مالا والله waxaan ugu dhacay arrin aan garanayn baan ugu dhacday meel kasta aan joogno bal wax yar aan ka fiirsano ma garanayo waxa arrin aan garanayn baan ugu dhacday xasbunallah wa ni'mal wakiil meel kasta aan joogno ma isku dirirayna wadanka hadaan joogno ma isku dirirayna dabadda hadaan joogno ma isku dirirayna Afrika hadaan joogno ma isku dirirayna meel kasta waxba isaga sheegayna waa arkay maxal waxa aragtay Naciima Joker oo xitaa mar ay gashanayd ayaa lagu aflagaadeynaayo la leeyahay marada qabtid war maxaa dhacay war sidee xalku yahay wal aan isla aragna waxa kan mucjisada aan isla aragna gabdhaha isna kala kendashe saddex naagooda waaweyn ay soo doontay maanta anoo ilmahayga sharta u kacday waa gofta waaqa inuu dugsi loo diray camal waa baxay xilmi galgacal libaax leer jiif finaanada la siyaajina rifrifti fiir meesha ka soo jeedo khas lagu daaroodka maxaa lagu yaqaan aan ku ahaayeen orod bal saddex naagooda waaweyn ay soo doontay maanta anoo ilmahayga ciyaarsinay daawasan diriyay orodka oo fiirsada adar martay waan wada joognaa xabad si wardeen daaw balas xabad baan inuu cunayaa walle adar laandeernimo waxa la dhahaa naagta intay ku qabatay ee ku sabaxdaysay intay ku leegatay kugu dulsheekaysay inta waliba kugu dulnastay taawo adal xabad baan saynigu cunay inigoo saddex horta mid waxa kama sheeganayo laakiin laba isku kaytay labo kamarada intana la duubin labo ay ahaayeen wiil Soomaali ah ayaa midiga qabtay oo meesha taagnaa booliska ii raacay maqaarti furay waxaan maanta ka guuleystay waa wiilka Soomaaliga iyo cadaanka arkay xaqdarada bal saddex naagooda waaweyn ay soo doontay maanta anoo ilmahayga sharta u kacday waa gofta waaqa inuu dugsi loo diray camal waa baxay xilmi galgacal libaax leer jiif finaanada la siyaajina rifrifti fiir meesha ka soo jeedo khas lagu daaroodka maxaa lagu yaqaan aan ku ahaayeen orod bal saddex naagooda waaweyn ay soo doontay maanta anoo ilmahayga ciyaarsinay daawasan diriyay orodka oo fiirsada adar martay waan wada joognaa xabad si wardeen daaw balas xabad baan inuu cunayaa walle adar laandeernimo waxa la dhahaa wata xamdiga gacal wata saa iyo gabadha kale ma sha Allah kugu dulsheekaysay gabadha kale dhulka ku dhacday kugu dulsheekaysay inta waliba kugu dulnastay taawo adal xabad baan saynigu cunay inigoo saddex horta mid waxa kama sheeganayo laakiin laba isku kaytay labo kamarada intana la duubin labo waa mucjiso wallahi billaah ma garanayo meesha taagnaa booliska ii raacay maqaarti furay waxaan maanta ka guuleystay waa wiilka Soomaaliga iyo waxay leedahay saddex gabdhood baa isugu kay tagay macnaha ay ugu soo orday laakiin laba damacday inay idisho anigoo ciyaalkayga wato oo maaqan adeeg iyo wax socda marka waxay leedahay midba waxa iga qabtay wiil Soomaali ah mid iga qabtay oo waxa weeyaan i caawiyay oo meesha taagnaa iyo mid kale oo cadaan ah tiri
mid cadaankana waa booliska markii la igu yeeray boolis baa loo wacay tiri booliska markii loo yeeray ayaa waxa weeyaan wiilka cadaanka ahaa iyo wiilkii soomaaliga oo gabadha ka qabtay ayaa u marqaati furay in laga gardarnaa oo macnaha saddexda naagood ay soo raadsadeen ayada midda ay dhulka ku hayso waan u wada jeednaa iyo midda kaleeto oo maxaa la yidhaahdaa oo ninku hayo xaqiiqda uma jeedno mana arkaynin yacni saddex gabdhood oo soo ordaysa laakiin sida iyadu sheegtay oo hadalkeeda aan ka wada maqlaynay waxay tiri 3 gabdhood bay ahaayeen laakiin laba igu soo orday tiri mid wiil baa iga qabtay midna waxay tiri waatan ay isku soo boodeen intay u banaysay ayaa midaasi dhulka ku dhacday markaasay saas uga kormartay maasha allah ee dhulka ku qabatay markii booliska yimidna dadka ayaa u marqaati fureen oo yiraahdeen waa laga gardarnaa xamdi galgacal oo ayadoo caruurteeda wadata dee caruur bayna wadatay xasbunallah wa nicmal wakiil qof caruur wata oo adeeg usoo socda inaa kusoo boodid maa inaa xushmaysid weeyaan caruurta yaryarka ay wadato because qofka keligeeda ma ahan caruur yaryar baa la socota waxa weeyaan caruurtuna ma ahan hooyadooda lagu soo boodahayo ama lala dirirahayo macnaha inay arkaan waa arrin aad iyo aada u qaldan waxa weeyaan waa sheeko waxa weeyaan soomaaliduna way taqaanaa inay dadka ay group ku raadsadaan oo group markay ku raadsadaan baando ku raadsadaan ay ku dilaan meeshaas hadda gabadhan haddii ay dilaan maxay ka faa-iidayaan wadan islaameed bay joogaan oo qorbaa wadankoodii ma joogaan xitaa waa la xirayaa jeel baa la geynayaa waxa weeyaan markaas in loo gurmado oo lacaga laga dhiibo oo jeelka laga soo bixiyo hadday dhaawaca geystaanna waa la xukumayaa oo maxkamad bay marahayaan marka meel kasta aan joogno ma ahan inaan anagu isku jeesano ma ahan inaan anagu israadsano subxaan allah xasbunallah wa nicmal wakiil inaan kusii dheeraado ma rabo sheekadanayto shalay ayaan baraha bulshada ka arkay marka maasha allah waa idin salaamaya salaanta muslimka idinku salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guys subscribe share like tan saara si ay idin soo gaarto maxaa la yiraahdaa cajaladaha aan soo duubo thank you very much